kulankan oo ahaa kii ugu horreeyey ee lagu qabto dalka Jarmalka isla markaasna ku saabsanaa aqoon kororsi iyo isxog waraysi oo ay soo qaban qaabisay hay'adda SEC ee xarunteedu tahay magaalada Fourmis ee gobolka Rhineland-Pfalz ayaa ujeedadiisu waxay ahayd in dadka Soomaaliyeed sidii loo caawin lahaa iskaashi buuxana loo wada yeelan lahaa. Kulankan oo ay kasoo qayb galeen jaaliyadaha ku dhaqan dalka Jarmalka, hay-adaha maxalliga ah iyo kuwa ka shaqeeya qaxootiga oo leeyihiin dad Soomaaliyeed, culimooyin iyo shirkadaha xawlaadaha oo si weyn ay ugu tiirsan yihiin dadka Soomaaliyeed. Kulankani inta uu socday waxaa lagu lafaguray sida Soomaalida dalkan ku dhaqan oo 15 sano ugu dambeeyay aad u soo galay ay isu kaashan lahaayeen isla markaasna loo caawin lahaa. Maxamed Cabdulaahi oo isagu kulankani qayb ka ahaa casumaadda dadkani iyo qabanqaabadiisa oo madax ka ah hay'adda SECO ayaa culimooyinka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Jarmalka ku ammaanay kaalinta weyn ay ka qayb qaateen dadka Soomaaliyeed wacyigelintooda iyo sidoo kale in ay caawiyaan dadkii ku dhaqan dalka Soomaaliya. Maxamed oo arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yidhi marka miida hadalka hamiiteen sheekha iyo culimo kala farbadan iyo dad kale oo active ah wadankan wax weyn ay ka qabteen Soomaalida joogta waxaan rabnaa inaan ku bogaadino ku dhiirigelino Ilaahay subxaanahu wa ta'aala culimo farbadan bay keenaan wadanka qalba sheekha si fiican uga hadli doona laba masaajid oo waaweyn bay gacanta ku hayaan hadda waxaan dhihi lahayn anagu reer Fourmis bilow waan nahay bal haddii se gacantiina soo gaarnaatiin aan Soomaaliya shaqsiyan aan musarahay inay bogaadin mudan yihiin shaqooyin bulshada Jarmalka u hayaan iyaga iyo inta kale oo hawlahaas qabata sidoo kale waxaan markaa inaan ugu bogaadiyo waxaan ku leenahay ku soo dhawow magaaladaadii waxaan ku soo dhawaatay dadkaagii insha Allah kamadaada waxaan ugu dhawaajiseen dhibka haysta weyn wada aragnaa dhammaanteedba lagagana bixi maayo sida hadda walaaliga horeeyo sheegeen oo dhan in gacanta la isqabsado saddex arrimood aynu ka tanaasulno qabiilka ugu horeeya arrinta labaad ugu horeysana ma garanaysaa waddankan aynu ku xidhannahay iyo siyaasadiisa aynu faraha ka qaadno aynu tan la jaan qaadno qofku waxaan u baahannahay inagu qof muslim ah oo Soomaali ah waddankana fahansan laakiin dhibka Soomaalida haysta waa maxay saddexdaa mid buu ka tanaasulaya ama Soomaalida ka tanaasulaya qofkii waxa weeye afgaran ma sidoo baahay saafu dunya aniga mabda'ayga aan ku shaqeeyo waxay tahay qabiil iyo politik inaan halkaas iska dhigay dhibaatadana keentay halkan waa dhibaatadii xagga ka jirtay inaan soo guurino halkan keeno haddana dib u bay noo ridaysaa wax nooma qabanayso marka walaalka caawi sheekheena kelmadiisu baa loo xoojinayaa in badan baan faanay baa qodobka ugu weyn dhibaatada ugu weyn haysta waxa weeye waa waraaqaheena aqoonsi la'aanta hadday tahay guurka hadday tahay carruurta noo dhalanaysa hadday tahay halkaa qodobay naga haysaa safiyana inoo sheegteen ka howlgaleen wasiirka arrimaha dibadda wasaaradda arrimaha dibadda ay kala xiriireen shukuna yiri halkaynu abaarayna waa dowladani Soomaaliya intay halka dowladda shirkaddan waxaa la aasaasay sanadkii 2012 waxaana laga aasaasay dalka Sweden ganacsato Soomaaliyeed oo isku qabtay oo shirkaddan aasaastay waxaan imaka nimid dalkan Jarmalka muddo 2 bilood ka hor ah xafiiskii koowaad waxaan ka soo furnay Fuji insha Allah waxaan rajaynaynaa xafiiska labaad inaan ka furno Mainz ama Frankfurt shirkaddan habka online-ka dadku lacag ku tusan karaan waan soo dhaweynaynaa insha Allah culimada dhamaystay halkii oo dhan waxaynu ku caawin karno aynu mid ku noqon karno waa hal xafo diinta islaamka wadda kale oo faa'iido wadda kale Soomaaliya fiiri wax walba waa lagu day military baa lagu day culimo kale wadaadada lagu day dimuqraadi baa lagu day federaal baa lagu day xariqi ilaahay ilaa aan ku soo noqono marka noo ku soo noqono aniga magacayga waxaa dhahaa Safiya Keenan waxaan ku magac dheerahay Safiya Power maadaama ururka Power u bixiyay magaceygana aan siiyay sababta u siiyay waxay tahay Soomaali hadana waxaan isku haysanaa qabiil waxaan isku haysanaa gobol waxaan isku haysanaa waxyaalo kale marka inaan sameeysan qof kasta oo adinka in ka mid ah 60 euro sanadka dhan waxba ma ka tarayso inaa gashin fishroomka markaa dhimato si aan lagu dhihin hebel lacag baa lagu leeyahay oo lagu aasi lahaa lacag baa laga bixinaya shirkadaas ka bixinayso waxaan siinayaa insha Allah wadaadka jaariyadan markii la asaasay magaalada waxaa muddo inay dayac fara badan ka muuqday oo dhan ama dhinacyo kala duwan ah haddii aan ahayd dhanka shaqo la'aanta dhanka jawaab xumida oo aan dadka sharciyada u xariisan yihiin ama bulshada
howlahooda ku jiraan aan wax jawaab aan helin sida jawaabo loo helayn aan kala qorno warqado waxaan marka hore isweydiinay fadeexado fara badan Soomaali markii meel loo degan yahay waxa Soomaalida meesha ku yara badan tahay waxa waaye dadkii way soo arkayaan qofka ku shaqeynayna meel maqaaxi ama meel badan baa isku imaanaya meeshaasna in ilaa gurmaysan ay gaarto ay tiraahaan Soomaalida meesha ay qabtaan madaraagis ay ganacsadaan ilaa dadka waxa Soomaalida waxa waaye waxaan haynaa in waxbarasho oo European-ka ay dhibayaan oo niman la hayo Erasmus in wanaagsan kaliya kartaan in faantay waxaan sheegi lahaa wadaadadii waxaan sheegay waan ku maasantiin in marka aan kala mahadcelina waana kulan weynihii ugu horreeyey oo ay soo qaban qaabisa hay'adda seeko ama abid jabir marka lagu qabto kaasoo ay Soomaali inta leeg ama ururo ama jaaliyado maxalli ah ay isugu wada yimaadaan cabdinaasir yaasiin SBC Germany